jihaad. Koox lagu magacaabi jiray Al-Murabitun Al-Murabadis oo ka soo dhaxbaxay isbahaysi ay yeglasheen qabaa'ilka Lamtuna, Gudala iyo Masufa oo ahaa qabiilooyin reer guuraa oo Berber la oran jiray kuna noolaa dalka hadda loo yaqaan Mauritania iyo Morocco iyo Saxaraha Galbeed ayaa jihaad ku gaarsiiyay diinta Islaamka galbeedka Afrika iyagoo ka soo tilaabay dhulka u dhaxeeya Dra Niger iyo wabiyada Senegal. Magaaladii u horeysay ee jihaad ugu gaarsiiyay diinta Islaamka markii loo fiiriyo galbeedka Afrika waxay noqotay meesha loo yaqaan Negroland. 1042 markii ay mareysay taariikhda miilaadiga, Abu Bakar oo hogaamiye ka ah kooxdani Al-Rabitun ayaa weeraray gobollo badan oo ka tirsan boqortooyadii Ghana, taasoo sababtay in 1076 ay burburto boqortooyadii Ghana ka dhisnayd shacabkeedina ay isu bedelaan muslimiin. Dhanka wadanka Mali, Kangaba oo ahayd magaalo ay aasaasteen qabaa'ilka Mandika ayaa gacanta Islaamka gashay taariikhdu markii ay mareysay 1050 waxayna magaaladani noqotay